بسم الله الرحمن الرحيم أدبان دي سلام يا دمانتين ميل ولا joogtaan isku soo noqdo wanaagsan muuqaalka maanta waxaan jeclahay inaan idinku soo gudbiyo sagaal arrimood oo sababi karaya qofka inuu xaqriska ku adkaado ama hadda si kale u yiraahdo sagaal arrimood oo ka hor istaagi karaya inaad wax akhriso ama ku diidi karaya walow uu jiro muuqaal aan horay idinkula wadaagay oo ka hadlayay siyaabooyin uu qofku caado uga dhigan karayo wax akhriska haddana weli waxaa jira qoraallo iyo codsiyo fara badan oo ii imanaya oo weli tilmaamaya in wax akhriska uu weli u adag yahay deetana waxaan baaray oo isweydiiyey maxaa keeni karaya qofka inuu wax akhriska ku adkaado wax akhriska muxuu sidiisaba inuu adag yahay ka bulsho ahaan wax akhrisku sidiisa uu adag yahay laakiin waxaa jiri karaya sababo dhowr ah ilaa sagaal qodob baan idinla wadaagaya sababood laakiin way ka badnaan karayaan sababka koowaad ee keeni karaya qofku inuu wax akhriska ku adkaado waxa weeye buugtii textbook ahaa aynu iskuullada ku dhigan jirnay markaynu soo barbaaraynay marar badan buugtii aynu wax ku akhrisan jirnay iskuuladaynu ku dhigan jirnay dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare ee textbook ahaa ee aynan jeclaysan jirin inaynu akhrino farta culus ku qornaa technicalka ahaa imtixaanka marka laynoo diro inaynu soo diyaarino oo imtixaanku soo dhawaado aynu doonin jirnay ama qaarkiin baad laga yaabaa inay high schoolka aad weli dhiganaysaan aad akhrisaan aad ka meemeereystaan marka aad imtixaanka diyaarinaysaan aad dhibsanaysaan ka wahsanaysaan waxay qayb weyn ka tahay inaad wax akhriska aad necbaysato waayo qofku marka uu yar yahay haddii buugta kaliya soo barbaarayo buugta kaliya uu la kulmo ay tahay uu buugta waaweyn textbook ah iskuullada imtixaanaadka iyo dhibta badan laga maro kaliya haday tahay waxa uu ku soo barbaaray oo soo akhriyay oo aanay ahayn meesha hadda aan joogo oo kale carruurta intay yaryar yihiin buug sheeka la siiyaa oo loo akhriyaa iyaguna akhrista novels bay carruurta dhalinyarada in ka badan buugta imtixaanaadka ay ka diyaariyeen iskuullada waxay akhriyaan novels buug sheeko faneeda ama sheekooyina oo jeclaysanayaan bay akhriyaan marka inagu sabab weyn bay tahay ka mid tahay sababaha waaweyn ee inaga hortaagan wax akhriska waayo waxay u muuqataa nooc punishment ah dhib baynu dareemaynaa markastoo buug soo qaada isnidhaano waayo xasuusta ku lamaan buugga mar waliba waxa weeye waa xasuus taban weeye waa xasuus negative ah waayo buuggan markastoo aad soo qaadaysay sababtaad u soo qaadaysay inta badan wuxuu ahaa in imtixaan kugu taagan aad ka diyaarinayso oo marar badan aad ka meermeereysanayso dan xasuusta maskaxdeena qaybta lawaaciga ku kaydsan tahay qaybta unconsciouska ayay u kaydsan tahay marka marar badan yeenan ku baraarugsanaanba laakiin markastoo istiraado buug soo qaado oo akhri larkeedii baa kugu soo kacaya marka arrinta inaynu ku baraarugsanaano inay qayb ka mida noqon karayso waxyaabaha akhriska inagu hortaagan ama buug markaynu nana soo qaado aynu ka wahsanayno u dhibsanayno in xasuustaasi ay jiri karayso marka inaynu conscious ama iska warqab ay jirto marka aad buugga soo qaadanayso inaad buuggan aanu ahayn buuggii aad imtixaanka aad ka diyaarin jirtay ee dhibka badnaa aanu ahayn buug adigu aad dooratay adigu aad jeclaysanayso faa'iido ay kugu jirto inaad akhriso oo aad aqoon ka kororsanayso inuu yahay inaad marka hore aad ku baraarugsan tahay qodobka labaad ee keeni karaya in aad jeclaysan weydo inaad buugta akhriso ama wax akhriska uu kugu adag yahay waxa weeye inaad isku daydo buug badan inaad akhriso laakiin aanu jirin buug aad weli dhamaysay deetana aad soo aragto inaad tahay qof ku fashilmay wax akhriska qodobka hore la xidhiidha arrintana marar badan buugtii textbook waxaa laynoo dalbi jiray ama aynu u baahnayn si aynu imtixaanaadka ugu baasnayn dhinacaynu ka soo bilowno inaynu dhinac kale uga baxno laakiin buugta akhriska ee qofku aqoonta uu ka kororsanayo ee isagu jeclaysanayo ee isagu soo xulanayo muhiim ma aha inuu dacal ilaa dacal u akhriyo
buugta fictionka marka laga reebo buugta sheeko faneeda ama riwaayaadka marka laga reebo oo iyagu aad sheeko la bilaabanayso doonayso sheekada inaad dhammaystirto ay isku xidhan tahay dabiya dacal buuggaasoo kale waa khasab inaad wada akhriso laakiin buugta aqoonta aad ka kororsanayso ee non fictionka intooda badana aan fictionka ahayn buugta isku si looma abuurin ma aha inaad wada akhriso dabiya dacal inaad wada akhriso buugta waxaa laga yaabaa in fikradii labo muhiim ay ku jirto waxaa laga yaabaa in aqoonta aad uga baahan tahayba inay sidii hore aynu soo tilmaanay inay 80% buuga faa'iidadiisa inay ku jirto 20% buugta ka mid ah ama chapterada ka mid ah marka chapterka adigu aad doonayso ee aad danaynayso aad xiisaynayso ka akhri iska laabada doonayso mid kala qaado bale dadka akhriska ku caan baxay ee aadka wax u akhriya waxaa laga yaabaa in 2 boog 3 boog 4 boog inay isku furaan markiiba oo aanay mid intay bilaabaan midna aanay dhammayn marka arinta iyada maskaxdaada ka saar waa okay haddaad buuga aad intaad chapter ka akhriso aad meel iska dhigto mid kale chapter ka akhriso aad meel iska dhigto mid kale chapter ka akhriso oo laakiin chapterada ay yihiin chapter adigu muhiim ku ah aqoon kala baxayso qof wax akhriyo baata hayso arkina tahay qof fashilmay qof waloo wax akhriyana waa wax buug baa jirta oo chapter iyo 2 ka akhriyo waa buugtu isku si looma abuurin isku si looma qorin isku xogna kuma jirto qodobka saddexaad ee keeni karaya inaad wax akhrisku kugu adag yahay waxa weeye in saaxiibadaadu aanay waxba akhrin hore waad iga maqasheen qodobkan ana u sheegay in badan waa muhiim arintan qaanuunkii waad xasuustaan ama odaadii orinaysay waxun baa tahay celceliska 5 qof ee ugu badan waqtigaaga ugu badan aad ku bixiso waxa ay yihiin celceliskooda baa tahay average-kooda baa tahay 5 qof ee kugu hareeraysan oo kugu celinaya 5 qof ee kugu hareeraysan hadii ay yihiin dad aan waxba akhrin oo aan wax akhriska jeclayn hadii ay yihiin waxa kugu bishaaranay adigu inaad waxba akhrin waayo saaxiibadu way isqaabeeyaan hab fikirkooda dareemadooda caadaadkooda intuba way isqaabeeyaan oraa carbeed baa tidhaahda man caasha maca qowmin 40 yowman saara minhu qofka qowm ka mid noqda ama la jooga muddo 40 cisha iyagoo kaloo noqda marka nabiguna tuuba laha salaatu rabbi salaamu calayhi qofku ka fiirsado saaxiibkii waayo qofku wuxuu noqonayaa diinta saaxiibkii ayuu yeelanaya oo kama qala calayhi salaam marka aad bay muhiim u tahay inaad haddaad doonayso inaad caado wax akhris yeelato qof wax akhriya aad noqoto waxa aad doonayso inaad akhriso dad jecel wax akhriska oo wax akhriya oo wax akhriska caan ku ah saaxiibadaada dhexdooda caankaga ah ku xidho haddaad doonayso inaad caado wax akhris yeelato caado kastana waa tabtaa arinta afraad ee keeni karaysa in wax akhrisku kugu adag yahay waxa weeye ama markastood buug soo qaada sidhaahdo aad ku luloonayso waxa weeye in aan wax akhrisku wali caado ku noqon arinta aad bay muhiim u tahay waayo ficil kasta aynu sameynayno waa caado nolosheena 90% in ka mid ah waxa la yiraahdaa saynisyahannadu waxay yiraahdaan waa wax aynu joogteynay oo routine oo caado ah marka wuxuu ilaa uu caado ku noqdo iskama sameynaysid had iyo jeer wax akhriskan wuxuu u baahan yahay si automatic ah inaadan uga fikirin oo kugu soo dhacdo buug yahay aad aragto dadka inta badan wax akhriya wax akhriska caadada ay u tahay waa dad iyagoo buug haysta arka oo uu qabanayo sida shaaha iyo kafeega iyo ciyaartu saakarka ay ku qabato dad kubadda ciyaarto iyo wixii kala ciyaartaba ay ku qabato in maaragtay sidaas la mid ay ku qabanayso inaad wax akhriso maalinkii oo haddaad maalinkii aad wax akhrin ama labadii maalmood aad wax akhrin ama weegi aadan wax akhrin aad tabayso inay wax ka maqayn marka wax akhrisku waa inuu caado ku noqdo caadana sida ay kugu noqon karto waxa weeye sida ay caadooyinkuba ay caado ku noqdaan waa in way ku kala duwan yihiin culimadu qaar 30 cishay sheegaan laakiin dhawaanaan waxa in badan la tilmaamaya saynisyahannadu tilmaamayaan in caadadu ku samaysanto 60 casho iyo wixii ka badan marka waxaad u baahan tahay inaad muddo 60 casho aad joogtayso wax akhriska arinta kale keeni karaysa inaadan noqon qof wax akhriya oo wax akhriska isu badan yahay waxa weeye inaad sugayso goob iyo goor habboon noloshu kama dhammaato
hawl kama dhamaato inta waa la ordayaa hawl bay ku dhiibaysaa ma helaysid goor iyo goob habboon oo aad wax ku akhriso marka taladan ku siinaya waxa weeye inaad meel kasta oo aad joogto aad buug gacanta ku hayso gurigeenu buu ku dhex yaalo hadaad gaari wadato gaarigeenu ku dhex yaalo hadaad qolka chiefkeenu ku dhex yaalo xafiiskeenu ku dhex yaalo boorsada iskuulka u qaadanayso ama shaqada u qaadanayso inuu kugu jiro buugu kugu jiro waan arrin muhiim arintaas yani waxay la xiriidhaa arintii buug kaliya inaad iska dawo wada hadda buug aad xiisaynayso aad bilowday aad doonayso inaad dhammayso haddaanu ahayn si mar waliba ay caadadu wax akhriska kugu fududaato waa in aad had iyo jeer buug u ka agdhow yahay goobta shaqada waa inay ku taalo goobta guriga waa inuu ku yaalo marba waa inaad qaadanayso aad buug baa noqdo laba buug ha noqdo chapter ha ahaado inaad akhriso oo aadan sugin goor iyo goob habboon ood wax ku akhriso inaad shaqo la'aan tahay mooyaane u malayn maayo inaad helayso marka ha sugin arrinta lixaad ee keeni karaysa in wax akhrisku kugu adkaado waxa weeye in dulqaadkaagu uu yar yahay ama markay wax akhriska noqoto oo dulqaadkaagu yar yahay wax waloo la bilaabayo oo caado adaga oo waliba akhrisku dee caadaadka adagna uu ka mid yahay wuxuu u baahan yahay dulqaad in uu qofku yeesho laba jeer bayna dulqaad yeelataad u baahan tahay oo marka koowaade caadadan intay ka samaysmayso waxaad u baahan tahay inaad dulqaadato waayo wax walba bilowgeedu san hore u tilmaamay way adag tahay waxaa la yidhaahdaa sharalska ama rocketska alan fagaagbuliyaha cirka loo diro waxaa la yidhaahdaa 80% shidaalkiisu wuxuu baxaa dhowrka daqiiqo ugu horeeya marka inta kalena wuxuu isticmaalaa baa la yidhahdaa 20% oo harayna wuxuu isticmaalaa duulimaadkiisa inta ka hadhay marka wax waliba noloshu bilowgeeda aad buu u adag yahay ka caquf badan bay leedahay marka inaad dul qaadato arrinta waa inaad dul qaadato arrinta labaad dul qaadanaysa waxa weeye midheed waxaa laga yaabaa inaadan si degdeg aadan ku helin marka waa 30 cisho laga yaabo inaad wax akhriso 6 bilood inaad wax akhriso sanad inaad wax akhriso midheedina aadan wali si degdeg aadan ku helin iyaduna caadadka waxay kamid tahay aqoonta kamid tahay qofku aqoon si ay u samaysanto aqoontu taraakumiya waxay ku dhisataa ma aragtay isbiirbiirsi accumulation weeyaan marka midheed waxaa laga yaabaa inaad si degdeg aadan ku helin taana waxaad baahantay inaad dul qaadato waayo haddaadan si degdeg midheed aadan ku helin waxaa dhici karaysa inaad wixiiba ka caajisto aad meel iska dhigto marka xilliga maanta aynu nool nahayna dulqaadka aad buu usii yaraanayaa qofku inuu dulqaad yeesho attention spankiisu inta uu diirad saaridiisu ama idhaahda dhugmadiisu inta ay uu dhugmo yeelan karayo cimrigeedu aad buu usii yaraanayaa ilaa 5 seconds 5 ilbiriqsi baa la sheegaa maanta walidaalika aad aragtaan waxaan la yidhaahdo xayeysiiska youtube-ka iyo xayeysiis kasta xataa tv haduu noqdo inta badan aad aragtaan 5 second in lagu soo koobo waayo attentionkii bini aadamka ayaa intaa la kala jiidanaya oo qofka 100 maaragtay channel baa ku furan 100 website baa looga yeedhaya 100 tv baa looga yeedhaya 100 post baa u yeedhaya 100 sawir la soo geliya baa u yeedhaya marka instagramkii wax uga soo dhacayaan facebook wax uga soo dhacayaan youtube-ka wax uga soo dhacayaan meelihii kala duwan hadda aad wada taqaaniin marka attention spankeenu waxa lagu daraa maanta attention waxa la yiraahdaa waa the new currency waa lacagta cusub ee maanta caalamka ee laga ganacsaday ka mid tahay shirkadka waaweyn ee maanta hantiilayaasha noqday facebook iyo youtube iyo hantida ballaaran waxay u yeesheen waxa weeye waxay ka ganacsadaan attentionkiina dhugmadeena ka ganacsadaan oo inta xayeysiis baa la iibinaya shirkadkii waaweynaaba gadanaya attentionkeeni bay ka iibsanayaan facebook iyo youtube iyo shirkadka la midka marka attentionkeeni baa la kala buubaya sida daradeed dulqaadkeeni uu yaraanaya waayo mar waliba wax yar oo qurux badan ayaa meelaha loo soo dhigaya oo aan marba aan indheeni aan la raacayna marka meel kaliya kuma maaragtay hakan kareyno waxa kaloo aad loo tilmaama dhawaanaan in wax akhriska uu dadku ku sii adkaanayso waa ugu sii adkaanaya ka mid tahay inuu qofku caadeysto akhrinta postiyada yaryar sida twitterka postiyada la soo geliyo facebook oo kale aadka u kooban inuu qofku akhriyo qofku hadduu la qabsado inuu postiga yar akhriyo dopamine-ka maskaxdiisuna ay dheecaanada gudbinayaan ay la qabsadaan inay taa dopamine-ka ay ka helaan rewardka ay ka helaan postiyada yaryar uu akhrinayo waxa adkaanaysa qofka inuu article dheer
inuu akhriyo iskaba dhaaf inuu article aqooneed u akhriyo maanta waxaa la yidhaahdaa daraasaadkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan artikalada cilmiga ee la publish gareeyo aqoonyahanadu ay publish gareeyaan article-kiiba inuu akhriyo 3 qof waxaan dhammaynayna inay akhriyaan halkii article la publish gareeyo ama warqad la publish gareeyo aqoon ku salaysan ee jaamacadaha iyo institutionada waaweyn ay publish gareeyaan average waxa akhriya la yidhaahdaa 3 qof marka buugna iska badaa inuu qofku akhriyo marka taladan ku siinaya waxa weeye inaad postida akhriskooda aad iska yarayso haddaad social media wax ka akhrinayso oo wuxuu marba aad akhrinayso isku day qoraalada dhaadheer inaad dulqaad u yeelato isku day inaad boring aad dareento isku day inaad maskaxdaadu jacaylka jeclaysanayso inay wax yar oo koobanay markiiba ka takhalusi karayso dopamine heli karayso inay akhriso isku day inaad ka yara celiso oo naftaada aad ku qasabto inay barato in ay boring dareemi karayso maqaalka dheer buuga dheer arrimahaas oo dhan wax degdeg dopamine looga hela ma aha rewardka degdega wax looga hela ma aha waxay u baahan tahay inaad yara dul qaadato si aad ula qabsato inta ugu horeysa way kugu adkaanaysaa laakiin la qabsigeedu wax badan oo aad noloshaada mar dambe aad ka mahadiso ayay ku horseedaysaa noloshu wax walo muhiimana waxay u baahan inaad meel fadhiisan karayso muddo 30 daqiiqo 40 daqiiqo saacada 2 saacadooda 5 saacadooda si aad waxa aad uga mira dhaliso marka haddaad iska yareyn karaynin social media isku day inaad naftaada qasbi karayso akhri karayso maqaalada dhaadheer arinta toddobaad ee keeni karaysa inuu akhrisku kugu adkaado waxa weeye in luqadaad wax ku akhriyayso ay tahay mid kugu adag adigoona caado aanay weli caadadii wax akhriska aanay ku samaysan haddii aad isku daydo inaad jeclaysato inaad buug luqadaadan aqoon aad wax ku akhriso dabcan aad bay kugu adkaanaysaa waxaa isku kaabiirsanaya caadadii akhriska oo aadan weli abuuran iyo luqadii aad ku akhrinayso oo kugu adag waa laga yaabaa qofku luqadda wax ku akhriya haddii u fududahay oo af Soomaaliga oo hadda aan ku hadlayno kale qofku wax ku akhrinayo in aad u dul qaadato caadada intay samaysmayso laakiin ingiriisigoodan wax ku akhriyi karin haddaad jeclaysato inaad adigoon caadadii wax akhris ku samaysan inaad ku akhriso way kugu adkaanaysaa marka carabina waa la mid dadkaan oo carabiga waxba ku akhrin marka isku day inta caadadu kaaga samaysmayso inaad luqadda aad wax ku akhriyayso ay noqoto luqad aad fahmayso oo si fudud waliba aad u fahmayso caadadu markay kugu samaysantana dhib ma laha si kastoo luqadda kugu adag tahay xilli baa imanaysa mar haddaad qof wax akhriyaa tahay xilli baa iman doonta aad ku raaxaysanayso buugga luqadda cusub aad wax ku akhriso waayo qof waloo aan luqad hore aan ugu hadli jirin markii ugu horeysay luqadda ugu horeysay wax ku akhriyo way ku adkayd marka deetana mar dambana dee sanado kadibna way u fududaatay marka taa dhib male laakiin waxaa daran inaad adigoon weli caadadaani kuu samaysan inaad wax ku akhriso luqad aan kuu sahlanayn way ka hor istaagi karaysaa in wax akhrisku ku fududaado arinta toddobaad waxa weeye in bilowgu uu kaa khaldan yahay muuqaal hore aan ku tilmaamayay dhankan kore aan idinkula wadaagayo ama aakhirka muuqaalka idinkula wadaagaya ama xagga hoose idinkula wadaagayo waxa weeye waxaan ku tilmaamay in qayb ka mid ah siyaabooyinku caadada wanaagsan ee qofku ugu samaysmi karayso inuu akhriyo waxa weeye inuu bilow wanaagsan la yimaado bilowgu hadduu kaa khaldamo waxaa laga yaabaa inuu akhriskuna uu kugu adkaado bilowgu inuu kaa khaldamo maxaan uga jeedaa in buug kaa culus aad ku bilowdo way buugtu qaar waa inala heer qaar way naga heer hooseeyaan qaarna way naga heer sareeyaan buug ka koreeya oo aqoonteedu iyo fahankeedu iyo conceptskeedu iyo terminology-geeda aadan weli gaadhin haddii aad tidhaahdo waan akhrinayaa oo laba buugaad dad ka soo qaadato aad jeclaysato aad iska soo dhigato guriga tidhaahdo waxbaan akhrinayaa oo caado wax akhris baan ku samaysanaya aad bay kugu adkaanaysaa bilowga uu kaa khaldanaanaya marka buug aad fahmi karayso oo kula heera isku day inaad ku raaxaysanayso inaad akhriso arinta labaad waxa weeye buug bilowga kaaga khaldami kara waxa weeye in buug 600 buga ama 700 buga inaad ku bilowdo marka ugu horeysa isku day inaad ku bilowdo buug 200 bug wax ka yara 150 bug oo si maaragtay durbaba aad u dhammayn karayso si aad uga hesho self esteemkii ah inaad dhammayn karayso haddaad jeclaysanayso inaad buugga aad dhammayso
walow aan hore usoo tilmaamin inay aanay muhiim ahayn inaad buugga dhammayso. Marka isku day inaad buug weyn isku qaadin, isku day inaad buug yar oo kooban aad marka hore aad ku bilowdo. Way iska fiican tahay marka ugu horeysa aad buug bilaabayso maadaama arintan subconscious la inoo fadhido inaan buug dhammayno, inaad buug yar 100 buuga laba buug ilaa 3 buug oo 100 buuga inaad iska kala tuurto marka hore aad akhriso, deetana aad halka aad uga sii gudubto. Arinta sagaalaad aan kusoo gabagabeynayo wax akhriska ka hor istaagi karaya ama ku diidi karaya wax akhriska waxa weeye inaanu mudnaanta koowaad kuugu jirin wax akhrisku. Waxa laga yaabaa inuu muhiim ku yahay, waxa laga yaabaa inuu hadaf ku yahay, waxa laga yaabaa inaad wax akhriska aad jeceshahay, laakiin kuuguma jiro waxyaabaha priority-ga koowaad aad siiso, waxyaabaha mudnaanta koowaad aad siiso. Nolosheenana waxyaabaha tayada u yeela waxa weeye ama tayada taya la'aanta ka dhiga waxa weeye waxyaabaha mudnaanta koowaad inoogu jira hadba. hadday ciyaaro la daawado tahay iyo hadday wax la akhriyaba ay tahay, labaduba sida aad mudnaanta aad u siiso, sida ay nolol maalmeedka qayb uga yihiin ayay noloshaada ama taya la'aan uga dhigaan ama taya ay ugu yeelaan. Marka waxaan ku oran lahaa haddaad doonaysa in wax akhrisku uu ku noqdo caado iyo waxaad jeclaysato iyo dadka wax akhriya inaad mid qayb ka mid aad noqoto, isku day wax akhrisku inuu ku yahay inuu mudnaanaha koowaad kugu jiro. haddaad jadwal dhiganayso qoranayso in jadwal kugu jiro, haddaad to-do list qoranayso maalinka inuu kugu jiro, haddaad maaragtay qorshe samaysanayso qorshe inuu kugu jiro, bishii waxaad ka fikirtay inuu ka mid noqdo, sanadkii waxaad ka fikirtay inuu ka mid noqdo, wiigii waxaad ka fikirtay inuu ka mid noqdo, maalinkii waxaad ka fikirtay inuu ka mid noqdo. sidaasuu kugu noqon karaya wax akhrisku caado kugu noqon karaya, sidaasaad wax akhriska ku joogteyn karaysaa, sidaasaad u noqon karaysaa qof wax akhriya oo muthaqaf ah. inaasaan muuqaalkeena kusoo koobaya. waa uu dheer yahay san arkaynaba, laakiin waxaan jeclahay in aad inuu wax ka faa'iideen inaasan muuqaalkeena kusoo koobaya. aad baan idin wada salaamaya. inta aan mar kale iyo dib dambe hawadaan ugu kulmi doono, waxaan idin rajeynayaa khayr aad fara badan waxa la akhriyo. inta maan ku gaajaysan yahay guuli waa weli. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.